السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان والله كسوماليد هالكان يقدر داونية ميل والبو أشوكتان يسير البود إمغليسان وحندونا يا إن مقال كان كسو قد بيو لبا قضب ورنتي آد مهمة وحمرك هور عندنا يا إن دول إستاغو مدحوين حسن الشيخ محمود أيا أوغلاضي هشيس كي فوش حما شركة دي كوستلاين الأورنجري أمريكان كاهيد الدولة دي هوري محمد عبد الله فرماجة يودي دي inay si fudud oo musuqmaasuqa ku qaataan toddoba ka mid ah xirmooyinka shidaalka ah ee ugu muhiimsan dalkeena ayaa maanta xasan sheekh maxamuud uu ogolaaday sheeko dheer oo arrintaas la xiriirta cidii u gacan gelisay dukumeenti xasaasi oo aan ka hayo baan soo bandhigi doonaa waxaan kaloo finally ka hadli doonaa oo qodobka labaad ah oo aan meel yar ka dul istaagi doono oo aan badnayn maxaa madaxweynaheena iyo dawladda Soomaaliya dhex geliyay dagaalka ka dhaxay Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka ee shidaalka iyo dhaqaalaha adduunka lagu hardamayo xageenu ka soo galnaa mise dalkeenu ma aha mid wax qorshe ah oo siyaasi ah leh wixii dhaqaaqaba waynu iska raacayna miya ma ana garan labada qodob baan falanqeyn doonaa soo dhawaada meel walba joogtaan iyo si walba ii maqlaysaan haddii aan ku bilaabo heshiiskaasi lala galay shirkadda Coastline la yiraahdo ee Mareykanka ah markeedii horena Soma Oil la oran jiray oo ayaduna horay Soomaaliya oga samaysay musuqmaasuq la xiriira shidaalka dalkeena markii dambe magac bedelatay markii ay caalamka oo dhan faashil ka noqotay oo musuqmaasuq iyo isdamarin looga yaabay bay magacii bedelatay heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis si hoose ay u galeen shirkadaasi Coastline iyo wasiirkii hore ee batroolka ninkii la oran jiray Cabdirashiid Sheekh Khalow oo uu gadaal ka riixayo rooble balse isqarinayay dibna aan ka soo ogaanay xogtiisa oo aan idana dukumeenti ka hayo cadeynaya sida rooble uu qayb oga arintaasi heshiiskaasi waxa diiday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 10 daqiiqo ka bacdi buu rooble waraaq kale soo qoray asaguna uu ku raacayo uu ku diiday si walba ha ahaato wuxuu heshiiskaasi u ahaa heshiis aan waafaqsanayn sharciga batroolka ee dalka isla markaana aan la soo marsiinin hay'adaha loogu talagalay in heshiiska noocaaya la marsiiyo heshiiskaasi wuxuu dhacay 8 March sanadan 2022 ayuu dhacay meel uu ka dhacayna lama garanayo marna waa Muqdisho leeyahay marna waa dibadda leeyahay laakiin xilligaas uu ku taariikhaysan yahay heshiiskaasi waxaan halkan ku hayaa dukumeenti ay qortay uu qoray ay raahdee wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya xilligaasi marka wuxuu ka hadlayaa wasiirku dhowr arrimood ayuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa waxa heshiiskaasi lagu xaarantimeeyay laba wuxuu kaloo ka hadlayaa dukumeenti ay weydiisteen shirkadaasi inay soo dirto oo la xiriira heshiiskaasi ay galeen si loo fiiriyo heshiiska oo la yiri 7 maalmood ba haystaan soo dir oo ay diideen iyo decision-kii laga gaaray ayay waraaqdan ka hadlaysaa waa waraaq uu wasiirku u diray dhowr kooxood oo kala duwan ayuu u diray wuxuu wasiirku waraaqdan u diray kooxda ugu horeysa u diray waa Coastline waa isla shirkadii ayaa waraaqdan loo diray because waxa la weydiinayay in dukumeenti soo diraan waxa kale loo sheegayay inay fake tahay wixii ay galeen oo dawladdu ay diiday ayaga loo diray embassy-ga Soomaaliya ay ku leedahay dalkan Mareykanka loo diray madaxweynaha loo diray ra'iisul loo diray waxa kale loo diray auditor general-ka loo diray soo marka dadkaayo dhan baa loo diray si marka loogu sheego in heshiiskaasi uu been yahay inuu saxba ka jirin isababihii loogu diiday haddii aan waraaqda ku hormaro qaybta ugu horeysa waraaqdan waxa ku qoran sababihii ay dawladdu ku diiday ilaa 5 sababood baa ku qoran waxa ka mid ahaa inaysan jirinin heshiisyadii iyo sharciyadii dalka u yaalay inaan la soo marsiinin ama aysan waafaqsanin heshiiskani dalkeena sharci baa loo sameeyay la xiriira batroolka dalkii iyo shirkadii batroolka la galiyo heshiiska waa inay procedure ka marto number 1 procedure-ki ma aysan soo marin number 2 madaxweynuhu looma sheegin dalka kama warqabo mana uu saxiixin ra'iisul wasaarihi kama warqabo arrimaha oo dhan ayaa lagu sameeyay marka 3 ilaa iyo 5 qodob oo arrimaha ay ka mid yihiin ayay dawladda Soomaaliya ku diiday markii la diiday kadibna xeelalayaha guud ayaa loo dhiibay oo asaguna investigation ku sameeyay asaguna wuxuu sheegay inuu heshiiskani ahayn mid aan waxba ka jirinin dawladdii hore ee Farmaajo markii ay sii dhacaysay labadii asbuuc ugu dambeeyay ayaa wasiirku waraaqdan diray
oo ay tahay conclusionkii diidmadii hore diidmo ka dambaysay oo conclusion ahayd ayay ahayd waraaqdan iyagii baa loo diray embassiga loo diray wasaaraha xafiiskiisa loo diray cid walbaa loo diray oo conclusionku ahaa in heshiiskan uu yahay mid xaaraan ah dowladda Soomaaliya agteeda aysan waxba ka ahayn sidaa daraaddeed si dowladda dambe ee ola jaan qaado ayaa loogu diray cid walba oo meel walba reference baa la dhiga sidaa daraaddeed heshiiskaasi sidaasuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa yimaaday markii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha hore ee Roble ayaa muddo sii shaqaynayay ayadoo xataa xamse la magacaabay uu sii shaqaynayay dokumentiga halkaad ka arkaysaan asaguna ciwaankiisu wuxuu yahay waa inuu Roble sharciyad u raadinayo heshiiskii xaaraanta ahaa oo asagu uu diiday taasaa muujinaysa marka Roble inay lug u aasnayd oo diidmadii hore saxba ka jirnin waayo xasan sheekh maxamuud oo jooga waa 28kii bishii May 2022 waa xilligii xafiiska lagu kala wareegay oo farmaajo uu xafiiska ku wareejiyay xasan sheekh maxamuud xamzana aan weli soo magacaabin muddo badan buu Roble meesha wasaare ka sii ahaa ilaa haddana saameyn weyn buu dowladdu ku leeyahay oo u dhigmata ra'iisul wasaarenimada ninkan xamse la leeyahay waa magacuyaal asaga iyo wasiirka arrimaha dibadda dad kala meesha ka shaqaysanaya Roble weli influence ku leh 28kii marka May ayaad ka arkaysaan dokumentiga ciwaanka leh ay warbaahinta caalamku ay qorayeen inuu Roble sharciyad u raadinayay in heshiiskaasi u shaqeeyo Roble waxyaalihii uu sameeyay waxa kamid ah inuu heshiiskaasi sharciyad u helay xasan ka dhadhiciyay haddana waa la yardaahay time baa la siiyay laakiin 28kii May ayuu xasan sheekh maxamuud ogolaaday in heshiiskaasi uu sidaa ku dhaqan galo aydan waxba aan laga bedelin waxyaalihii qodobada ahaa oo ay dowladdu ku diiday oo dhan ayadoo la taabanin ayaa dhaqaale loo qaatay Roble iyo Shaqaalow iyo xasan sheekh iyo nimanka la midka qayb bay ka wada yihiin in la boobo 7 xirmo 7 xirmo oo ku ugu muhiimsan dalka Soomaaliya oo ku teedsan badda iyo birrigaba waxa loo gacan geliyay marka shirkadda Coastal Line la yiraahdo oo sunuud yar looga qaata 2 milyan 10 milyan 50 milyan I don't know oo saxiixa looga qaata waana billion and billion dollars way October baan idin sheegay 8deedii in sanadka oo dhammaan xasan sheekh maxamuud uu gali doono heshiis shidaal maadaama shidaal laga waayay Kenya ee shirkadaha ana ay soo jabi doonaan bal muuqaalkan waxay la daawada madaxweyne xasan maxamuud shirkadaha soo kala yaacaya uu la gali doono heshiis maxaa la yiraahdaa shidaal ah oo bonuska la doonay marka lacag looga qaato xasan sheekh maxamuud waxaan aaminsanahay inta uusan yeer ku dhamaanin dhowr heshiis oo kala duwan buu gali doonaa laakiin isha ku haya waqtigan sheegi doonaa laakiin socodka badan ee madaxweynaha shirkadaha badan ee ka soo jabaya Kenya iyo xaalad Soomaaliya ka jirta contractyo badan oo xaraan ah oo la yaab leh ayaa dhawaan dhici doona laakiin markay dhacaan baynu ku hal doonaa halkaas dalka nagu maraya marka waxa la yiraahdaa nabrad fariisa naxdin ma laha waan idin sheegaya maantayto qof walba oo Soomaaliya wax garanaya waxana akhrin karaya waa inuu qayb ka qaata in dalka laga difaaca dadka noocaay oo kale oo doonaya in hantida ummadda iyo dalku leeyahay ee resource-ka in si free lagu qaato nimanka sida u shaqeynaya nimanka sida maanta sameynaya waa nimanka shirayto ka qaylinaya heshiiska kala sameynay xasan wuxuu ka mid ahaa nimankii heshiiskaasi markii uu farmaajo diiday ku eedeynayay farmaajo in heshiiskaasi ay qayb ka yihiin ilaayeen waxaa la galay wax loo yaqaano waxaa la galay dambi qaran baa la galay lahaayeen laakiin final ayagii ba ogolaaday markaysan waxaan idin sheegayaa cidii dan kale dalkaas iyo dadkaasiba waa inay qayb ka qaadataa sidii aynu oga shaqayn lahayn afka ku difaacin lahayna dhaqaale ku difaacin lahayna wax walba inuu ku difaaci karo resource dalka aan la boobinin oo inuu qayb ka qaadano taa waa idin sheegaya cidii aan ogeyn iyo cidii aan raalli ka ayday u taala laakiin heshiiskaasi waa dhacay waana musiibo dalka iyo dadka u soo hooyatay ka warqaba waxaan kaloo finally aan ka hadlayaa qodobka ugu dambeeya waxay tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa ay soo saareen waraaq ay markaas uga hadlayaan inay Sacuudiga ku taageerayaan go'aankii uu ka qaatay arrimaha Mareykanka isku hayeen ee shidaalka xasbidiin mudan maxaa xasan asaga waxa ka galay where does he fit in that case markaysan maxaa ka galay waxa asaga xasan dalkanagi gudihiisii baynu dhaqaajin laanahay dagaalka al-shabaab lagu jeeno ka karlaana madaxweyne si fiican dagaalka loo galo muxuu ka qaban karaa arrintaas mini waa daqsi biibaya way meeshii 10 mataqaana dollar laga siinayo xasan
ودول دقيا قديدي سي أرتدي سي الدولة نمدي لغة القفاي أيو مال والبميس كدور صاريا وورق غير وشاف وقوة تحسن دولة نمدي الصوماليات شرفتي مجا نجي نيكي $10 سي أيو ميسك وصاريا إلهي جوجي نرجسان ومصيبة ما نقرنا يوحى إنك نوجا إيمانا يا إسكما ودار حساب محن نوجا إيمانا يا محن إنك جلي محن إنك سوق جلي حتى دول عكو قادنا يا حتى حلايا إن إيمان الله هيد مرو العكت في عكو قادنا الله مرة يبغى أنت إن قرمت من ولا قعدي مرة يبغى أنت إن محل هذا اللغو بريول يا أنت هنقاضو نيجي كور رئيس ديت ملين بسعودي وكبريين أسوق حبل السنين بو أسوق هلك قعدنا يا مركب ورابط صاريا ما أجنت السعودي وشقيا بس الدولة مسير أمداد بعد وش كسارن أول الربع إنه ضمت أنا كفيريو مصالح ذا لازم نوحس مسك وصاريا عارف إن فاينل كوسو قد بيو نمكن حل بان هذا الشيء جنا يدلك هلك أوتشو ما أنت كردي ده سموح كلا قبنين هكا الله نشيس كوستل أنا لا قلي مسك ما سوقه الرب لحمر ولي أفريو رزارة وياه الشيء قالوا ولي أبوتك أوتشرو حسن الشيخ محمد كشلا قايل لي وما أنت قالك كدوي كلي هكا هلا هدي وحقبنا يومي أنا نكر رزارة اللي حول الدين ما هي وحنا ودين ما حنا ما هي مسكين وين أصلاً يعني كفار منستر كعبة الله بنا مساكين وين يحمل لك الشيء يا مجا الله بحين فرح لك قال لكن وين برلمان كده ما كل شيء جاي إنه قاعد هذه نمرك إن الليست بالكهلا أرتا أنت سامك سو كوبيا أنت بدي بس الله بنا إنه عندك أنت إنسان بدينه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.